intuu wacan wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada naga daawanaysaay ku soo dhowaada warbixin aan maanta idinka diyaarin doono mid ka mid ah hoteelada qurxinta guryaha oo la yidhaahdo Hotel Balance Decoration oo ku yaala magaalada Hargeysa oo aanu booqasho ku tagnay haddaba telefishinka caalamiga ah ee Rama TV waxa uu maanta warbixin buuxda idinka gudbin doonaa Hotel Balance Decoration oo ah hoteelka qurxinta guryaha oo sida aad arkaysaan ay halkan wada yaalaan dhammaan agabkii lagu qurxinayay guryaha oo kala duwan oo aad indhahaga u soo jiidanaya marka aad iska soo xaadiriso ama aad timaado Hotel Balance Decoration ee magaalada Hargeysa kulanti wacan wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada naga daawanaysaay ugu horreyntii ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Rama TV bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad mahadsantihiin Ramad Group waad mahadsantihiin maanta nagu soo boqotaan qoobshada shaqo soo dhawaada aad iyo aad mahadsantihiin halkan waxaad ku haysaan qalab kala duwan oo ah qalabkii qurxinta guryaha ugu horreynta waxaad tafaasiil naga siisaa adigoo magacaaga ku bilaabaya oo saddexan agabkaad halkan ku iibinaysaan iyo noocyada isugu jiro bismillaah mahadsanti walaalo halkan waxaa la yiraahdaa magaceeda Decoration Palace ana waxaan ka mid ahay mas'uuliyiinta Decoration Palace halkan waxaan ku iibinaa dhammaan qalabka xafiisyada guryaha qalabaynta meheradaha iyo guryaha hadiyadaha muraayadaha iyo dhammaanba agabka loo isticmaalo qurxinta guryaha sida fooq qasriyada waaweyn ee dalka ka hirgalay badankooda anaga qalabaynay sidoo kale waxaan haynaa hadiyadaha ay dadku isugu tala galeen iyo dhammaanba agabka guryaha aan ka maarminay wax lagu qurxiyo agabyadan aad ii sheegtay ee guryaha lagu qurxiyo ma jiraan agabyo kale oo ka duwan agabyada meheradaha kale ee idinla midka magaalada Hargeysa ay hayaan oo aad loo odhan karo agabkaasi Decoration Palace uu ka duwan yahay meheradaha kale walaal saad ku aragtay meherada gudaheeda waxaan u maleynayaa inay ku cusub yihiin alaabtan aan hayno aan wadanka aan oolin anagu baahaynaa sida noocyada marmarkaan hayno wadanka ma yaalaan waa markii horeysa la keeno marmar noocana wadanka الرحمن الرحيم يعني شركتنا شركة ديكوريشن بلس تم افتتاحها قبل 8 أشهر عندنا الإضاءات عندنا البي في سي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن احنا في سومالند في مدينة هرجيسة. الحمد لله تمينا افتتاح شركة ديكوريشن بلاس من قبل 8 أشهر والحمد لله العمل تمام ونتميز بعدة مشاريع وعدة أعمال لدينا مثل الجبسون بورد والبي في سي والمزاهر الهدايا واللحام والنجارة والسباكة وعدة أشغال مثل البيوت المشاريع الجديدة نستلمها المدارس وعدة أعمال ومرايا وندي بضاعة كل شهر نحصل على بضائع من الصين كونتيرا ولدينا معلمين كبار كهرباء سباكة ألمنيوم نجارة كل ما نمتلك من أي مشاريع نستلمها لدينا معلمين كبار والحمد لله. قروينكي أما بحالي قريها الفريي يودن رعية كلا دوان له أو أنا ودن كهرباء يمد بكرة دوان حجم ونوع بكرة دوان يبان هينا. يوم سبيدا حفيزيدا تاني كذي مقطعات كتشو أنا بس سمعنا أورد بيدلهم قف كستوى ديزاين كدوني يبانو سمعنا نوع الدوني ميد كدوني لوح ميد كدوني والله سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بالتلفزيون الصومالي إلى ديكوريشن بلس. نرحب بكم. طبعا ديكوريشن بلس أتينا هنا للاستثمار في هذه الدولة والحمد لله وجدنا ترحاب ووجدنا إخوتنا الصوماليين رحبوا بنا وسهلوا كل الإجراءات. نحن نحب إخوتنا هنا في الصومال وهم قد أتوا إلينا في اليمن ونحن الآن نزورهم أيضا في الصومال. نحن شعب واحد وإخوة. طبعا نحن فكرنا في الاستثمار في أكثر من دولة فكرنا في العديد من الدول لكننا اخترنا الصومال. لماذا؟ وجدنا أنها دولة جديدة تريد أن تتطور لديها اقتصاد إن شاء الله سيكون اقتصاد نام ومتطور فاخترنا هنا لهذه الأسباب. والسبب الآخر أن نكون قريبين من
اليمن، فنحن قريبين من اليمن عند إخوتنا هنا في الصومال. والشيء الآخر، هنا يوجد الأمن والأمان، وهذه مسألة مهمة جدا. طالما هناك أمن وأمان فهناك استثمار جيد وهناك تطور البلد. إذا لم يوجد هنا الأمن والأمان فالناس سيهربون، لن تجدوا أحد. لكن الحمد لله كل شيء موجود متوفر، وإن شاء الله الدولة تعمل على تطوير البنية الاقتصادية والبنية التحتية. طبعا نطلب من الحكومة أن يتم رصف الشوارع، أن يتم مد الكهرباء الحكومية. هذه الأمور ستجلب الاستثمار، وسيكون في استثمارات كثيرة وجيدة. نرحب بالتلفزيون الصومالي مرة أخرى، وشكرا جزيلا لكم لزيارتكم لديكوريشن بالاس.